Assalaamu calaykum soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal walaal haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysa channelkeena soo booqatay channelka waxaan kaga hadalnaa sida online lacagaha looga sameeyo adigoo gurigaaga jooga haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysa soo booqatay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe noo saarto muuqaalka hadda aad daawanaysana aad like saarto sidii noogu noqoto dhiirigelin saaxiibayaal siday ballantu ahayd waxaad iga sugeyseen muuqaal website-yadii ugu dambeeyay dabcan aynu lacagihii aynu ka sameynay muuqaalkeenii hore wuxuu ahaa 2 week inaan ku sameynay dabcan waa soo wada daawateen walaal muuqaalkii hore haddii aad soo daawanaa muuqaalkan hoostiisa ayaan kuusoo dhigi doonaa ama descriptionka saa u taqaano halkaas ayaad kasoo daawan doontaa muuqaalkana muuqaalkeenii hore ayuu daba socdaa kii hore haddii aad dabcan ila socotay kana waad ila socon doontaa maantana waxaan doonayaa inaan ila sheergareeyo website-yadeenii ugu dambeeyay aynu channelka aynu soo gelinay lacagihii aan ka sameeyay ayaan doonayaa inaan ila sheergareeyo muddadii aan isticmaalayay website-keena ugu horeysay magaciisu waa Erasmol waxaan ka sameeyay $9 xayisiis ahaana waxaan ugu sameeyay $26 iyo 60 senti website-keena ku xiga magaciisu waa Yahaka isaguna waxaan ka sameeyay $3 xayisiis ahaana waxaan uga sameeyay $10 website-keena ku sii xiga magaciisu waa Pathmark isaguna waxaan ka sameeyay $17 iyo 25 xayisiis ahaana waxaan u sameeyay $13 dabcan muuqaalkii hore qaar baa commentiga igu soo qoray xayisiis ahaan maxaa ka wadaa mar labaad ayaan kugu celin doonaa website walba aan sharaxayo aan YouTube-kan soo dhigo waxaan ku qaataa $15 ilaa $14 meelahaas ayaan ku qaataa marka haatan waa fahanteen baan u maleynaya website-keena ku sii xiga magaciisu waa Kasey Mall isagu waxaan ka sameeyay $10 xayisiis ahaana $13 ayaan uga sameeyay website-keena ku sii xiga magaciisu waa Quantinum dabcan idukuna badanaa waad ka faa'iideysateen website-kaasi aniguna waan ka faa'iideystay waxaanan ka sameeyay $35 iyo 10 senti muddo koobanna waan ku jiray xayisiis ahaana $13 ayaan uga sameeyay website-keena ku xiga waxaan ka sameeyay $11 iyo 36 senti xayisiis ahaana waxaan uga sameeyay $12 website-keena ku sii xiga magaciisu waa AC Mall isaguna waxaan ka sameeyay $10 xayisiis ahaana $12 ayaan uga sameeyay website-keena ku sii xiga waa Phil USDT $15 ayaan ka sameeyay xayisiis ahaana $12 ayaan uga sameeyay macnaha markii hore waxaan ku yiri $15 ilaa $14 intay u dhaxayso ayaan website walba ku sameeyaa laakiin TRX ahaan ayaan ku qaataa 100 TRX barna way isbedelaysaa waxay noqonaysaa $13 marmarna $12 ayay noqonaysaa marna kor ayay u kacaan marna hoos ayay u soo degaan website-keena ku sii xiga waa BBC Quantify waxaan ka sameeyay $6 xayisiis ahaana $12 ayaan uga sameeyay website-keena ku sii xiga waa Coolest VIP isaguna waxaan ka sameeyay $9 xayisiis ahaana $12 ayaan uga sameeyay website-keena ku xiga waa Woolworths waxaan ka sameeyay $16 iyo 20 senti xayisiis ahaana $12 ayaan kaga sameeyay website-keena ku sii xiga Morrisons Mall isagu waxaan ka sameeyay $13.25 xayisiis ahaana $12 ayaan uga sameeyay website-keena ku sii xiga waa Manor Mall isaguna waxaan ka sameeyay $6 iyo 70 senti xayisiis ahaana $12 iyo 30 senti ayaan kaga sameeyay website-keena ugu dambeeya waa Lidl Price Mall dabcan maanta ayaan soo gelinay waa uu cusub yahay $2 iyo 40 senti ayaan ka sameeyay xayisiis ahaana $12 ayaan uga sameeyay marka website-yadan waxaa laga faa'iideystaa intay cusub yihiin haatan website-yadan oo dhan ma shaqeynayaan kaliya waxaa shaqeynaya saddexdeena website ee ugu dambeeya oo calaamada saxda saaran kuwa calaamada qalad saaran ma shaqeynayaan waa 14 website total ahaan waxaan ka sameeyay $347 iyo 81 senti ayaan ka sameeyay waana 14 website muddada aan kaga sameeyana taqriiban waxay qaadanaysaa 2 week ilaa 3 week meelahaas ayaan kaga sameeyay marka online lacag waa laga sameeyaa adigoo gurigaaga joogaya online lacag kaga sameyn kartaa dabcan saddexda website ugu dambeeya haatan waad ka faa'iideysan kartaa iyagu hawada ay ku jiraan inta kale ma shaqeynayaan marka sidan hore kuugu sheegay online lacag waa ka sameyn kartaa kii hore 2 week ayaan ku sameynay $216 kana waxaan 2 week ilaa 3 week inta u dhaxaysa aan ku sameynay $347 iyo 81 senti saaxiibayaal Trusty Wallet-keena waxay noogu jirtaa $395 ayay noogu jirtaa 86 senti muuqaalkii hore iyo website-yadan hadii la isku geeyo dabcan meelaha waxaan ka sameeyay $450 ilaa $460 meelahaas ayaan ka sameeyay website-yadan oo marmar lacagta markaan u baahdo waa aan la baxaa inta kalena asxaabta ayaan u sarifaa marka adig walaal haddii aad u baahan tahay lacagaha USDT ama Tron waa aan ku sarifi doonaa waxaad igala soo hadli doontaa Telegramka halkaas ku qoran aniga ayaa ku sarifi doona haddii aad u baahan tahay USDT ama TRX Tron